labada dham waxaa dareemaysa Soomaaliya in ay doonayso in qaab cadaalad loo xaliyo halka dawladda Kenya iyaguna ay doonayaan in si qaab wada hadal hoose ah loo xaliyo arrinta badda u dhaxaysa Soomaaliya iyo dawladda Kenya. kulanti wacan wanaagsan daawadayaal gebi ahaantiinba halkani waa janaalka King 252 ku soo dhawaada gacmo furan. asxaabtii hore janaalkani hadda ka mid tahay waa ku mahadsantahay la joogistaada. asxaabta cusubna waxaan leenahay soo dhawaada gacmo furan, subscribe inoo saara. maanta waxay diiradda inoo saaran tahay aan ka hadli doonaa khilaafka iyo dacwadda xooggan ee u dhaxaysa dawladda Soomaaliya iyo dawladda Kenya oo maanta dacwaddaasi ay ka furmayso magaalada Hague ee dalka Holland. King 252 waxaa maanta lagu wadaa in magaalada Hague ee dalka Holland uu ka bilaabmo dhageysiga dacwadda muranka badda u dhaxaysa dawladda Soomaaliya iyo dawladda Kenya. qareennada matalaya Soomaaliya ayaa maanta gudbin doona dooda ku aadan muranka badda. dawladda Kenya ayaa shalayta iyadu shaacisay in aysan ka qaybgeli doonin dhageysiga dacwaddaasi maanta ka bilaabmaysa maxkamadda ku taala magaalada Hague ee dalka Holland. sida ay warbaahinta Kenya ugu warantay in dawladda Kenya ay sabab ugu dhigayso in arrintani ay ka cabanayso maxkamadda in aysan si xaq ah ula dhaqmin dawladda Kenya iyo in maxkamadda aysan doonaynin in ay tixgeliso codsiga Kenya ka yimid ee ah in dib loo dhigo dhageysiga kiiska ku aadan dooda badda Soomaaliya iyo Kenya u dhaxaysa. waxayna dawladda Kenya gaashaanka ku daruurtay oo ay sheegtay in ay sabab kaga dhigayso in aysan ka qaybgelin doodani in uu jiro cudurka fayraska ee ah coronavirus. maanta oo Isniin ayaa 3 galabnimo ilaa 6 maqribnimo ay qareennada Soomaaliya soo gudbin doonaan dooda ku aadan badda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya. sidoo kale waxay qareennada Soomaaliya ay Talaadada oo ah 16 bisha maalinta berita ah 3 ilaa 4 barka mar kale soo gudbin doonaan doodooda ku aadan badda Soomaaliya iyo Kenya isku haystaan. waxaan halkan isugu keenay arrin inoo muhiim ah dal ahaan iyo dad ahaan iyo qaran ahaanba. arrintaasi waa arrin ku saabsan inaan shacabka Soomaaliyeed ku wargelino dacwaddii badda ee laynagu haystay baddeena ee soo bilaabatay 2014 aynu xaraynay dacwaddeeda ee maxkamadda cadaaladda dunida ICJ aynu keenay. arrintaasaan maanta isugu yeedhay saxaafadda inaanu dadweynaha la socodsiino arrimo ka soo cusboonaaday dacwaddii badda iyo halka ay marayso. sida og tihiin baddeenna oo ka mid ah xuduudaha dastuuriga ah ee dalka sida cirka, dhulka iyo badda waxaa dacwadeynagaga aynu maxkamadda dunida geysanay kadib markii dawladda dariska ah Kenya ay sheegatay inay badda qayb leedahay. dacwaddii aynu geysanay August 2014 ee laynaga aqbalay ilaa maanta 2021 taagan maalin walbana sidaan sheegi doona ay dib u dhigaysay dawladda Kenya ayaa markii afraad waxa ay shalay soo saareen qoraal ay rabaan inay mar shanaad dib ugu dhigtaan dacwadda. mar afraad oo noqonaysa xilligoodii shanaad in la muddeeyo. dawladda federaalka Soomaaliya saaka oo Khamiis ah 12 February 2021 waxa ay maxkamadda cadaaladda dunida ICJ xarunteedu tahay Hague dalka Netherland ay u qortay warqad ay ku sheegayso Soomaaliya inay diyaar u tahay inay ka qayb gasho dacwadda oo la muddeeyay dhowr usbuuc kadib 15 Maarso 2021. haddaba haddaan dib idii xusuusiyo taariikhda ku aadan muranka badda Soomaaliya ee Kenya u dhaxaysa waxay soo bilaabatay 7 Abriil sanadkii 2009. dawladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya ayaa Kenya kala saxiixatay heshiis isfahan ah oo la xiriira xadka badda labada dhinac. heshiiskaasi waxaa dhinaca Soomaaliya u saxiixay Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo xilligaasi ahaa wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah. dawladda Kenya dhankeeda waxaa u saxiixay ninka lagu magacaabo Moses Wetangula oo ahaa markaasi wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Kenya. heshiiskaasi kuma uusan jirin arrinta la xiriirta xadka badda balse waxa uu dhigayay in hanaanka loo mari lahaa in lagu xaliyo
khilaafaadka xadka badda ee labada dal u dhexeeya. 1 Agoosto 2009 baarlamaanka Soomaaliya ayaa dood dheer kadib aqbalay aqlabiyad ballaaran ugu codeeyay in la laalo heshiiska is-afgaradka ah ee dhex maray Soomaaliya iyo dowladda Kenya. kulan aan caadi ahayn oo ay yeesheen baarlamaanka gebi ahaanba waxay ku diideen in xitaa dood ku saabsan arrinta dib loo dhigo. wasiirka arrintan qoseysay in fursad la siiyo oo uu ku faahfaahiyo heshiiska 13 Juulaay sanadkii 2015 sanad kadib markii ay ku wargelisay maxkamadda in ay dacwadda soo wado Soomaaliya ayaa rasmi ahaan kiiska badda u geysay maxkamadda caalamiga ah ee ka dhisan dalka Holland. xeer ilaaliyaasha Soomaaliya Axmed Cali oo warbaahinta la hadlayay xilligaasi ayaa sheegay in arrintani go'aankeeda ay gaari karto oo kaliya maxkamaddaasi, halka xeer ilaaliyaha guud ee Kenya xilligaasi uu ahaa Kitu Miguai oo uu isaguna warbaahinta u sheegay in Soomaaliya aysan xaq u lahayn in kiiskani ay geyso maxkamadda Hague. 18 bishii December sanadkii 2017 Kenya ayaa xareysay jawaabta kana bixinaysa kiiska ku aadan oo Soomaaliya ay ka gudbisay maxkamadda caalamiga ah. xeer ilaaliyaha guud ee Kenya waxa uu ku doodayay in maxkamadda aysan xaq u lahayn in ay go'aan ka gaarto kiiskani. wuxuu codsaday in arrintan labada dal ku xaliyaan wadahadal oo ay iyagu isku afgartaan Soomaaliya iyo Kenya. Soomaaliya ayaa iyaduna dhankeeda bixisay jawaabta ku aadan codsiga Kenya maxkamadda ugu dalbatay in arrintani maxkamadda lagu xaliyo. labada dhab waxaa dareemaysa Soomaaliya in ay doonayso in qaab cadaalad loo xaliyo, halka dowladda Kenya iyaguna ay doonayaan in si qaab wadahadal hoose ah loo xaliyo arrinta badda u dhaxaysa Soomaaliya iyo dowladda Kenya. xeer ilaaliyaha Soomaaliya xilligaasi Axmed Cali Daahir ayaa ku adkaystay in Soomaaliya ay u aragto in maxkamadda ay tahay goobta kaliya ee lagu kala bixi karo, waxayna xukuumaddiisa ay diiday doodii Kenya ee ahayd in labada dhinac ay gaaraan heshiis isfahan ah oo waafaqsan xeerka caalamiga kaas oo ay tahay in Soomaaliya ay xushmayso dowladda Kenya. Soomaaliya ayaa ku dooday in heshiiskaasi uusan sharci ahayn maadaama uu diiday in baarlamaanka Soomaaliya ee xilligaasi jiray in dacwadani ay sii socoto ay ogolaadeen. 2 Febraayo sanadkii 2018 maxkamadda cadaaladda ee qaramada midoobay ayaa go'aan ku gaartay in ay dhageysan karto dacwadda ku saabsan muranka badda u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya. xaakimiinta maxkamadda ayaa u cadeeyay kiiska kadib markii ay kala heleen sharci ahaan doodda iyo ciidamada Kenya. 7 Febraayo sanadkii 2019 Soomaaliya ayaa waxa ay London ku qabatay shir ay ku sheegtay in suuqgeyn ahaa shidaalka Soomaaliya. wasiirka batroolka ee Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed oo warbaahinta u waramayay ayaa sheegay goobaha sahminta laga samayn karo ay ku jirto qaybta badda Soomaaliya ee badweynta India. Kenya iyo Soomaaliya ayaa ku muraysan yihiin, isagoo sheegay in Soomaaliya ay leedahay go'aanka la xiriira arrintaasi inta ay maxkamadda cadaaladda caalamiga ah ay ka soo saarayso go'aan ku aadan muranka u dhaxeeya badda Soomaaliya iyo dowladda Kenya. 16 February sanadkii 2019 dowladda Kenya waxa ay la soo noqotay safiirkii Soomaaliya waxayna ka codsatay safiirka Soomaaliya ee Kenya inuu dalkiisa ku laabto, iyadoo markaasi dowladda Kenya ay bilaabayso qaab cadawtinimo ah. wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa sheegtay in shirkii shidaalka ee Soomaaliya ee London lagu xaraashayay hantida shacabka reer Kenya, taas oo ay sheegeen in ay tahay tallaabo aan loo dulqaadan karin. muranka badda Soomaaliya iyo Kenya u dhaxeeya ayaa soo jiitamaya in ka badan muddo 11 sano ah.